barnaamijka xusuus reeb ama xasuus reeb waxaa had iyo jeer aan ku soo qaadnaa dhacdooyinkii taariikheed ee ka dhacay arlada geeska Afrika gaar ahaan dhulka ay Soomaalidu degto oo 60kii ama 50kii sano ugu dambeeyay waxyaabo waaweyn ay ka dhaceen maadaama qoraallo badan aanay jirin iyo wax kale oo heshiis lagu yahay waxay noogu muuqatay in hadba cid aanu u aragno ama ay noola muuqato inay qayb ka hayeen ama ay ka xasuustaan waxyaabihii dhacay aanu ugu yeedhno barnaamijkan waxaanu kaga sheekayn doonaa intiisa badan booliiska xaaladii uu soo maray dalkii la oran jiray Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa ugu muhiimsan oo dad badan ay isweydiiyaan dhacdadii taariikhda gaarka ah ka samaysay geeska Afrika ama dhulka Soomaalida ama labadii gobol ee isku biiray 1960kii oo ahayd 1969kii 16 Oktoobar markii la dilay madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed Cabdirashiid Cali Sharmaarke dilkaas oo ka dhacay magaalada Laascaanood waxa barnaamijka marti noogu ah Colonel Ismaaciil Baaruud oo ka mid ahaa saraakiishii markii hore dhalinyarada ahayd ee markii gobonimada la qaatay kadib saraakiisha booliiska noqday kadibna waxa uu maxkamadii badbaadada markii la sameeyay 1970kii ka mid noqday dambi baarayaashii maxkamadaasi la fahantiisa waxa loo diray in uu fuliyo go'aankii maxkamadu ay ku riday ninkii dilay ama sarkaalkii dilay madaxweynihii dalka oo ka mid ahaa ciidankii daraawiishta ee booliiska su'aasha in badan ayaa la isweydiiyaa dad badan barnaamijkan hore ayaanu uga sheekaynay annagoo wareysanay Allah u naxariistee Maxamed Cabdilla Walanwal oo sigis la oran jiray oo aanu ka wareysanay markii la dilay madaxweynaha isagoo xogdiisi ka ahaa ama gudoomiye degme magaalada Laascaanood su'aasha hadaba la isweydiiyay waxay ahayd ninkii ma la dilay soo nool yahay soo si kale u dhintay waxa marxaatiga furaya barnaamijkan maanta Ismaaciil Baaruud oo ka mid ahaa ninkii xilka loo xil saaray Ismaaciil waxa uu galay inuu ahaado ama uu ka mid noqdo dhalinyaradii booliiska Mandheera la geeyay lagu tababaray dambi baare booliiska ayuu noqday ama booliiskii caadiga ahaa markii dambe xidigle ayuu noqday 1968kii 69kiina waxa uu ka mid ahaa raggii kullayba aniga xaggayga marka laga eego ciidamada ahaa ama bilayshada ama military ee la qabsaday ee la xukumay markii dambena waxa uu madax ka noqday ciidankii loo oran jiray nabadgelyada wadooyinka ama traafigada oo ahaa taliye ku xigeen muddo dheer ah burbur baa dhacay dalal baa kala go'ay ama kala qaybsamay isaga qudhiisu ragii qaxoontiga ahaa ka mid noqday dibadda u qaxay London buu noogu yimi oo muddo nala joogay waxaan nasiib wanaag ka helay magaalada Hargeysa anigoo la fahanteedu joogay oo aan ugu yeedhay stuudiyaha Bal Ismaaciil in aan waxyaalo badan weydiiyo taariikhda yar ee kooban ee hore Ismaaciil oo ka sheegay horta markii hore barnaamijka ku soo dhawow maxaad ka duwi lahayd ama aad ku dari lahayd adigu qaybta hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mr. Ducaale wax badan baan ka dhageystay barnaamijka aad soo jeedisay TV-ga waana wax loo baahan yahay had iyo gooraale in la is xusuusiyo ama dadku qofba si uu arkaaye nin walba sidii uu og yahay wuxuu og yahay wax ka sheego sida aad u sheegtay anigu dhallinyarnimadeedii waxaan ku soo barbaaray Mandheera meesha xarunta iskuulka booliiska ayaan ku soo barbaaray kabacdina halkaasaan booliiska ka galay waqtiga aad sheegayso ee markaa ahaa waqtigii la dilay madaxweynaha actually halkaas anigu waxaan markaa ku jiray madaxweynaha la dilay Police Academy oo Mareykan ku jiray hadhow baynu ka sheekay ayaan ku jiray weedna waan ka imi 69kii Burco ayaa la geeyay taliye saldhig ka noqday 70kii baa haddana xamar la geeyay maxkamadda badbaadada meel oo oran jiray hadhow baan geli doonaa ayaan dabeetana tagay waa runtaa waynu sixi doonaa waan geli doonaa
markaa qaybtaa hore ee bilayska xaaladda bilaysku sidee bay ahayd, sidee loo shaqayn jiray? labadiinii bilayskii somaliland iyo bilayskii koonfureed markay isku biireen waa la cawdaa inta badan. waxay yidhaahaan saraakiisha hore dulmi baa ka dhacay oo masalan qolyihii halkan darajooyinka yarar lahaa ee isbatooraha iyo waxaa ahaa markii la isku daray xaggaa waxaa laga dhigay xidiglayaal, qoladii xagganna waa la waayay. maxaad ka xasuusataa ama ka maqashay sheekadaa hore inay ka dhaceen oo dhibaato ahayd? waxaan ka maqlay inay dhibaato badan ka dhacdo, cadaalad darro ka dhacday halkaas. nin maxamed abshir la yidhaahdo ayaa waktigaas booliiska xukumi jiray. waxay soomaalidu tidhaahdaa dheri ninkii u dhowown baa kala baxa janshada. waxaa dhacday in kuwii halkan joogay markaa derajo inay wax u kordhaan sugayey ee ahaa isbatoorayaasha mutacalimiinta ah ama siniyerka ahaa aanu dhug u yeelan ama tixgelin aan la siinin dalkan waqooyiga total wixii jira. qaar badan oo markaa waxaa jira badan oo saraakiil sarsare ahaayo oo la arko inay igu diidaan arrintaa igu khilaafaan. hase ahaatee xaqaa'iqu waxa weeye ninkii ay dhibku gaadhay ayaa garanaya. waxaan ka xusuustahay marka aan dib ugu noqdo maskaxdayda in nin la odhan jiray maxamed cigo dhintoo geeriyooday maanta inaga hooseeya xilligaa uu ahaa isbatoore 3 leh, chief inspector buu ahaa. waxaan rajaynayay inuu halkaa markuu tallaabadaa ka dhaqaaqo uu kabtan noqdo oo xidigta yaree gucundhadiiba ay xidig u noqoto. may jirin xidigta waxaas markaa. dabeeto xidigtii inuu dallaco, inuu kabtan iska daayo, inuu xidig qura u dallaco. maxamed ciige waxay ku qaadatay ilaa 68 bay ku qaadatay. waa nasiib daro oo wakti dheer. kii markaa koonfurta joogay ee 2 aliflaa ahaa waktigaas sida laga sheekeeyo, anagu koonfur maanaan joogay dee dhalinyaraan dhulkanaan joognay. 2 aliflaha ahaa karaaniga ah ee joogay xamad markiiba inta xidig la siiyey baa loo diray talyaaniga milano ficiis maasraaka halkaasaa loo diray. dabeedna waxay maxamed cige oo ruug cadaaya oo chief inspector ah iyo 2 alifle xidig lasoo siiyey baa dabeetana la yidhi waxaa sarreeya ninkan xidigta la siiyey baa sarreeya. taas was nasiib darray ahayd. markii dambe xitaa lama siinin oo lama odhan lagu sabir siiyee waxaa la geliyey 9 bilood oo trainina buu galay. 9 bilood ayuu xidigtii u galay 9 bilood oo training. ninkii aan dhimanin wuu gaadhaa hadafkiisa had iyo goor. hadafkii wuu gaadhay maxamed ciga uu lahaa, yani wuu sabray. maxaan ku dhahday waa shaqeeyey xidig iyo 2 iyo 3 iyo mijir iyo cihod uu qaatay gaashaale sano ku dabcan ayuu gaadhay. tusaale u ahaa un raggaa laakiin tusaale ahaan cadaalad darradu ku dhacday ayaan arrinta usoo sheegaya un soo qaadanaya. kaa iyo kuwo kaloo badan ayaa dhacay. ma regreed gareeyo qolooyinkii koonfurtu qaladkaa dhacay ee sameeyey inkastoo loo sheego, inkastoo ama siyaasi u sheego, inkastoo wax laga qoro ma qirtaan oo arrintaa marnaba dadkaa koonfur jooga inuu khalad dhacay ma qirtaan, mana ogola arrintaa. anagu ka hadli maayo siyaasaddii, laakiin booliiska iyaga laftiisii baan ka hadlaya, ayaan ka hadlaya. booliiska iyaga laftiisii ayaan ka hadlaya. 1969 inqilaab baa ka dhacay dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo odhan jiray ama Somali Republic. militariga oo bilayskana huwaday ayaa dalka qabsaday. waxaa ka horreysay oo arrintaasi sabab looga dhigaa in la dilay madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda oo lahayd 1969 16 bishii Oktoobar. intaa gelin goormaad adigu sarkaal noqotay horta? waxaan noqday anigu sarkaal 1968 akhirkiis. 68 ka dambeeya akhirkiis
markii aadna qabsateen dad militariga iyo bilayska tiin markii aanu idin qabsanay anigu waxaan joogay Mareykan waxaan ku jiray college-kii aan sheegay markii hore ayaan ku jiray dabeedna waan ka soo cararay maxaad baranaysay policing baan baranay police CID police shaqooyinka booliska ayuu baan barano waxaan joognay Washington baan joognay inta in leeg baad ku maqnaydeen waxaan ku maqnay 6-7 meelaha bilood baan ku maqnay markii aanu ka nimina de booliska iyo hawshiisii baan ku soo noqonay anigu markaa Burca la geeyay taliye saldhig Burco ayaa la iga dhigay muddo ka bacdina waxa la geeyay xamar maxkamadda badbaadada meel oo dhan jiray oo halaag ahay goorma la sameeyay maxkamadda badbaadada waxa la sameeyay 1970 early 1970 69 آخر ده maxaad ka noqotay maxkamadda badbaadada waxaan ku ahayn baarayaal waxaad ahayd waxaan ahaa nin sharciga yaqaan oo police officer wanaagsana oo gudaha iyo dibaddaba lagu soo tababaray oo adduunyada sharciyadeeda nidaamkeeda soo arkay oo horena prosecutor u soo noqday oo yaqaanay nidaamkii sharciga iyo maxkamadaha intii ka horeysay intaan maxkamadda badbaadada la sameyn maxaa u dhaxeeyay maxkamadda badbaadada iyo maxkamadii hore sharciga idinka gacanta ku haysto waxa la yiraahdo sameeyay jirtay nin kasto anagu waday kamid ahayn ragga marka shaqaalaha dawladda ku soo biiro aanu shaqulka qabanayay naqaanay bal hada labada wixii u dhaxeeyay khilaafkii u dhaxeeyay sharcigu waanu sameeyay sharciga waanu sameeysan jiray ma jiro laakiin waxaan ku sheegayaa sharciga islaamka iyo sharcigan kale ee lagu shaqeeyo adduunyada lagu shaqeeyo kullu wixii dambi waa dambi maxkamadii hore waxay ku saleysnaayeen oo ay ahaayeen more or less shuruucda adduunyada ka dhaxaysa ayay ku shaqeynaysaa maxkamadda waa inuu jiraa gudoomiye loo jiraa xaakim sharci yaqaana waa inuu jiraa maxuu ahaa prosecutor nin wax soo prosecute gareeya waa inuu jiraa xeer ilaaliye waa inuu jiraa lawyer ka soo horjeeda ka xeer ilaaliye ah oo la doodo oo dabeetana gun iyo gabagabo case-ka loo sameeyo whereas maxkamaddii badbaadada way ka cuslayd maxkamadahaas oo kale lawyer looma ogola berigii hore markii dambe waa la ogolaaday laakiin markii hore waxba ma jiri jirin lawyer meydaan ogolayn markaa qofka markii hore laakiin markii dambe waa la ogolaaday diida uu dabin baa ku dhigan waa la ogolaaday lawyerka markii dambe la sameeyay maxkamadda kiisaskii cuslaa la qaaday lawyeradii waa la ogolaaday maxaan ku idhaahdayay ambiil may lahayn xeer ilaaliyihii guud ee dalka xilliga 1969 oo maxamuud sheekh muuse ah 69 gudoomiyihii maxkamadda sare maya xeer ilaaliyihii guud I think haddaanan qaldanay waxaan moodayay gudoomiyaha maxkamadda sare inuu whatever maxkamadda wuu ka soo horjeestay maxkamadda wuu ka soo horjeestay in la sameeyo waxaan yidhi kuma dhisna sharciga adduunka meel la kama raacsan wax badan baanu ku dadaalay ama ka hadlay in la joojiyo samaynta maxkamadda oo haddii xitaa la sameeyo oo militarigu iyo ciidamadu ay samaystaan in wax u eg habka ay u shaqeeyaan maxkamadaha kale laga dhigo way socon weyday arrintaa dhig jalaq looma siin dabeetana uu ka tegay maxamed uu risaan gareeyay wuxuu yidhi anuu tan dhex joogi maayo waa ka maxkamadaas marka way ka cuslay waxaa dilku ahaa 150 shilin oo musuqmaasuqa qofka lagu qabtaa wuxuu ahaa siyaasadda iyo waxa iyo haynoo joogo iyo arrimaha iyo diidmo iyo tawradda ka soo horjeed iyo arrimahaas haynoo joogay 150 shilin baa lagu dilay ragga adigoo kale Ismaaciilo waxaa la odhan karaa waxaad garanaysid maad wax ka taqaanay at least ama uu yaraan qodobaynta iyo qofka in xeer loogu soo marmarsoodo iyo sharci iyo aqoon baad u lahayd ama tababar baad u lahayd maxkamadda badbaadada kuwa judge ama idin xukuma ama meesha xukuma wax sharci aqoon u leh ma lahayn oo ma hore wax soo xukumay oo aan lahayn in military iyo police ay soo galaan actually maxkamadda markii horeysay
waxaa guddoomiye ka ahaa nin booliiska ahaan jira waay oo la odhan karo waxbuu ka yaqaanay sharciga marka aanu is-indha tirin maxamed sheekh baa la odhan jiray maxamed sheekh keesas badan oo culus ayuu galay waxaan xusuusnahay case nin basaas lagu eedeyn jiray oo cali hayj la odhan jiray oo case basaasada lagu soo oogay dabeetana wuxuu maxamed sheekh wadaba kayskii cali hayj waa la sii daayay waay waxa la yidhi wax shaqaynaya ma there's no case against him case yani dembigaa uu ku mutaystay oo lagu soo caddeeyey ma jirto maxamed sheekh markaa waa laga bedelay maxkamaddii kiiska dareed prosecutorkii oo ahaa cabaas maxamed dhoore oo garanaya daso prosecutorkii kayskaa prosecute garaynaya ahaa waa la bedelay sidana waa la cuna geeli ayaa yimi markaa ma hubo anigu inuu geelle jurisprudence Italy kusoo qaatay iyo in kale laakiin isagoo jaja hore waxaa kiinu maan arkay oo guddoomiye maxkamadeeda xagga kale xeer ilaalinta waxaa ka ahaa guddoomiye nin maxamuud miro la odhan jiray oo nin booliiska oo ku soo gaboobay buu ahaa booliiska ayuu ahaa kacaankii nimankii markaa guddigii kacaankana kamid ahaa buu ahaa muddo ayuu ninkaasuna halkaas joogay natural dabcan haddii uu ahaa sarkaal booliiska oo ilaa xilligaa soo shaqaynaya soo joogay wixii aan la iska indhatirayn aqoon dabcan uu u lahaa qodobeynta samaynta dacwadda qofka lagu soo oogay ma wada indha la-ayn dadku intaasuna waxaa lagu soo kordhiyo meesha yimi markaa oo fari fani ahayd arrin fani ahayd nin cismaan mayo la yidhaahdo oo mujir militariga ah oo jurisprudence kusoo qaatay Italy sharciga kusoo bartay waxoogaa kaysas hore oo sidaa culus oo uu ka soo shaqeeyeyna aanay jirin ayaa ka bilaabay maxkamadda inuu isaguna noqdo ka wax dacweeye prosecutor muddana wuu ku raagay cismaan cali hayje sheekadiisi maxay ku dambeysay hayje waxay ku dambeysay cali hayje waa la sii daayey hayje waa ta ragna eed after 7 days baa lasoo xidh cali hayje aniga iyo nin cabdicasiis olol diini la yidhaahdo waan garanaya ayaa kayskii dib loogu dhiibay baadha baa la yidhi kayskan dib u baadha faylkii horena waa kaa soo keena arrin muddo ayaan oniyo ninkaa cabdicasiis olol diine la odhan jiray kayskii cali hayje dib u baadhay aakhirkii cali hayje kayskii maxkamad baa la keenay haddana oo uu qaadayo geelle cali hayje xabsi dheer baa lagu xukumay marka I think 15 meelaha ilaa 15 sanadood meelaha sheelkiina kamuu soo bixin cali hayje 20 jir waa la geeyey mar dambe lama arag meelu marayna ilaa imka lama yaqaan inuu dhintay inuu nool yahay midna lama dhimay definitely maxaad ku hesheen adii cabdicasiis oo la diilay markaad dib soo baadheen aad kiiska dib ugu noqoteen wax dembi oo basaasnimo ah oo aad ku qabateen ma jirin so wax lagu eedeeyay un baa cali hayje tuhum uu lahaa cali hayje haddaan dib kaaga sheekeeyo wuxuu ahaan jiray cali hayje xoghayihii ninkii la oran jiray maxamuud xarbi ayuu ahaan jiray oo isaga qudhiisa dhimashadiisa iyo halkuu ku maqan yahay xisaabtiisu ay su'aal adag tahay su'aal adag waxa wax laga saara umad moojina wax ogiyo wax ku og wax laga saara cali hayje kiiskaanu baadhayni waxaa ku soo baxay maxamuud xarbi oo jooga Soomaaliya ayuu hayje fax uga soo diray Beirut
noloshii halkaasaan joogaa lacagtii iyo arrimihii aad ii dirtayna way ii socon weydii waxaan kaa codsanayaa inaad ii timaado waxaan ku helay faxku soo diray taxku soo diray documentsku soo diray wixii oo dhan soo helay dabeetana maxamuud xarbi wuxuu ka baxay Soomaaliya he went to Beirut buu tegay markaa halkaas oo ay ku kulmeen Ali Hayji arrintu waxay ahayd inay Qaahiro ku kulmaan laakiin Beirut bay ku kulmeen oo isaga ay Beirut baan joogaa Beirut ku kaalay dabeetana wax lagu wada hadlay halkaas lagu wada hadlay Hayji wuxuu ku hadlay Beirut maxamuudna wuu baxay diyaarad inuu raacay baa lagu diyaaradda meel dhimatay miyay gubatay miyay dhacday ma meel kale ka baxday I don't know really laakiin halkaas ugu dambeysay aragsi dambe ugu dambeysay iyo waliba rag kale oo la socday oo wafdigiisa ay ka mid ahaayeen maxamuud Ali Gacanlow maxamed Ali Gacanlow Hayji markaa shaqadii halkii wuxuu lahaa Hayji 4-5 passport wuxuu lahaa international wuxuu lahaa diplomatic passport Ali Hayji markii dambe way oo ay leeyahay ya diplomatic passport yaa lahaa Soomaaliya way diplomatic passport buu lahaa ordinary passport buu lahaa service passport buu lahaa all these passports buu lahaa Ali Hayji markaan qabanay anagu waxaan documentigan helay wada Soomaaliya waxaanu baarnay Ali Hayji graafkiis dhaqaale halka uu maray dhaqaalihiis wuxuu marayay markii lagaga soo qabto waqtigii uu maxamuud ay sarkeen oo baxay halka markaan kaga soo qabano graafkiis wuxuu marayay tab lacag badan contracts muxuu lahaa xisaabo badan iyo LC badan iyo waxbuu furtay sisimo iyo alaab ayuu soo dejiray Ethiopia baa mushtar gaar lahaa safaaradda America ayuu ku xidhnaa last minute waxa laga soo qabtay isagoo safaaradda America ku jira niman NSS tahay ay ka soo qabtay oo markii dambana lagu marxato marka ma mushahar buu lacagta u qaaday baa mushtar maya baa mushtar iyo de wax kasta siyaabo kale lagu soo siyaabo kale ha marka tuunkaas ay jiray inuu agent yahay uu cid kale u shaqeeyo maxamuud xarbina waa loo tirinay markaa maxamuud xarbi kayska laguma soo qaadin waxaanu keenay laakiin faxkii uu soo diray waqtigaas ayaanu ka keenay meel baanu ka keenay faxkii meel baanu ka soo helay wuxuu kaloo bixiyey press conference buu ka bixiyey Kuala Lumpur meelahaasa isagoo ku hadlaya on the name of magaca dowladda Soomaaliyeed maxamuud ninkii la oran jiray halkaas uu khudbada ka bixiyay beberskii waqtiga lagu qoray warkii uu bixiyay iyo khudbadii uu jeediyay ayaanu ka doonay Kuala Lumpur aanu ka keenay Kuala Lumpur oo inuu ku hadlayo magac qaldan oo magaca wax ugu dhimayay magaca dowladda Soomaaliyeed ayaa ku cad marka intii ka dambeysay waxa la dilay madaxweynihii uu ka horeeyay 96 marka waa runta weedi kan maxkamadii badbaadada la maray ninkii dilay madaxweynihii labaad ee dalka marka Cabdirashiid Cali Sharmaarke maxkamadda la fahanteeda ma la soo taagay adiga saxil ma laga saaray inaad wax ka mid noqoto ragii ama wax ka galay kiiska ama ogaa ama xaalka maxaad ka ogay maxaa ka xasuusta waxa ka xasuusta muddo la baaray qolo gooniya ayaa actually baari jirtay maxkamaddana waa la keenay waa lagu xukumay dil baa lagu xukumay maxkamadii badbaadaha dil baa lagu xukumay hase ahaatee muddo ayaan la fulin horta muddo kiiska la baaray muddo badan baa la baaray 69 waqtigii wax dilay ilaa 1970 toddobaatankii meelahaas waqtiyadaas oo dhan waa la baarayay meel isolated waxaas buu ku xidhan jiray anagu ma arag manaan tagin maxkamadda waxaan soo la keenay dabeedna waxa lagu xukumay dil baa lagu xukumay
isolationkii meeshii uu ku xidhnaan jiray dhulkii baa lagu celiyey wakti ka mida meelahaas militariga iyo zoonkaas buu meel gooniya maan arag maananti wakti ah 70 dabayaaqadiis ama koob iyo 70 bartankiisi oraantiisii ayaa ninkii la dabcay in la dilo la amray in la dilo dabeetana waxaa la yidhi ha lagu dilo goobtii uu wax ku dilay madaxweynihii ku dilay in ha lagu dilaa la yidhi dabeetana waxaa nalagu soo diray aniga oo ka socda maxkamadda badbaadada xeer ilaalinta nin prosecutor ah isaguna isna xeer ilaaliye ah maxaan ku idhaahdayey sheekh oo gaar ah ayaana lagu soo daray dayaarad 4 baal leh oo aan soconayninba ayaa nala saaray dhowr askari na waa nala socda oo escort ah ninkan ilaalinaya nabadgelyadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa waasoo aniga dee aniga iga hoos ninkii dayaaradii 10kii waan xusuusnay 10kii subaxnimo ayaa xamar nagala soo kacday diyaaradii waxay dhaafi weyday gaalkacyo baabuur gaalkacyo dhaafi kari weyda diyaaradii 5 o'clock markay ahayd ayay diyaaradii gaalkacyo dhaafi kari weyday dabeetana waxaanu nihi warna deji ninkii gaalkacyo waa ninku eryadu ka dhashay ninkan aanu wadnaa سعيد waa eryadu ka dhashay weeyaan nin gaalkacyo laakiin khasab bay nagu noqotay inaanu gaalkacyo fadhiisano gaalkacyo ayaanu fadhiisanay 5tii galabnimo qof waliba wuxuu filayaa markaa oo anaga naga mid ah in aanu la kulmi doono dhibaato inaanu la kulmi asaa haddee ilaah baa naga badbaadiyo ninkii intaan la cararay markii askartaydii ayaa waxaan la galay xeradii daraawiishta waa meeshu ka tirsanaan jiray laakiin nin aanu macaraf nahay oo sarkaala ayaa haystay oo aan aaminsanahay ayaa haystay marka xerada daraawiishta ninkii baan wixii ku akhriyay aan u sheegay arrintiisa ay u dhacday waxa uu nageeyey markaa jeel gooniya oo xerada ku dhex yaalla oo adag ayuu nageeyey halkii uu noogu xidhay askartii iyo wixii iyo casho ayuu noo keenay aniguna halkii hortiisii albaabkii hortiisii waa seexday albaabkii lagu riyay hortiisii ayaan aniguna seexday salaadii baa shaahna la siiyey markaasaanu baxnay burco ayaanu ku soconnaa burcaanu tagnay 2dii duhurnimo meelaha dabeetana waxaanu soo gaxaysanay 10 askari oo ah booliiska 10 askari oo militariya 10 askari oo asluubta ka tirsan dhulka ciidan markaa jiray dhulka ayaanu maray inta laan roobar aanu siinaan dhulka mara waa la sii diyaar gariyay ciidanku oo dabcan war baa naga soo horeeyay dhulka mara baanu nidhi anagu diyaaradii baanu ku kacnay haddana 2dii duhurnimo meelaha maxbuuska inoogu sideenna iyo dhowrkaygii askari anagoo wadana 5tii galabnimaanu laasacaano tagnay burco laasacaano dabeedna ninkii waanu xaraysanay waanu xidhnay ninkii jeel baanu ku ridnay waanu hor seexanay subaxii baanu tagnay ninkii dardaaran baa la yidhi maxaad kala sheegaysaa cusub dardaaran wuxuu yidhi waxaan sheegayaa ma jirto waxaan idiin sheegayaa buu yidhi nimankii daraawiishta aan ka tirsanaan jiray ee reer burco ha laygu salaamo
salaan halayga gaarsiiyo way waxaan kaloo idiin sheegayaa buu yidhi in yar oo deyna ayaa burco laygaga lahaa walaalahay iyo ehelka wixii maqlaya ha layga bixiyo deyntaa yar jeel baanu ku ridnay waanu hor seexanay subaxii baanu tagnay ninkii dardaaran baa la yidhi way maxaad kala sheegaysaa ee cusub way dardaaran wuxuu yidhi waxaan sheegayaa ma jirto way waxaan idiin sheegayaa buu yidhi nimankii daraawiishta aan ka tirsanaan jiray ee reer burco ha laygu salaamo salaan ha layga gaarsiiyo way waxaan kaloo idiin sheegayaa buu yidhi in yar oo deyna ayaa burco laygaga lahaa walaalahay iyo ehelka wixii maqlaya ha layga bixiyo deyntaa yar war kalena ma jiro asbaxdii 8 meelahaas waa ka 10kii tiirkaanu ku xidhnay ma muujiyey ninkaasi marnaba inuu ka xumaaday inuu madaxweynaha maya dilay naba weligiiba laguma arag qosol laguma arag halka caddayn laguma arag sabab baan u dilay buu yidhi marka masalan marna ma sheegin baadhistii anuun baa dilay buu yidhi cid baa ka dambeysay waxbaa waxaas ma jira no wax clue ah wax raad raac ah oo uu bixiyey ma jiro ma jiro iyo cid ka dambeysay iyo wax ma jirto ama hal la dilo ama wax kasta lagu sameeyo waa laga waayay wax kale tiir baad ku xidheen nimankii subaxii dambe tiir baan ku xidhnay waay halkaa qiso fani ah ayaa ka dhacday 30kii askari ayaanu safnay meesha soo joojinay ninkiina tiirkaasi ku xidhayay anigu waxaan ahay markaa sarkaalkii meesha maraayey ninkii u xil saaraa baan ahay in ninkaa la dilo marka amar baad bixinaysaa waxaad odhanaysaa hal xabo nin walba hal xabo cabe shiish waxaad shiishaysaa ninka dilka ku xukuman ee tiirka ku xidhan marka ay sidaa yidhaahdaan ee shiisho maad leedahay min hal xabo kuri bla markay 30kaasi ku ridaan xeer ilaaliyihii wadaadkii dhakhtarkii iyo adiga ayaa u tegaya soo eegaya ninkii inuu dhintay iyo in kale markaan u tagnay ninkii ma dhiman tiirku weli ku xidhan yahay dhiigna kama daadanaynin xitaa dabeedna waa soo noqonay halkii baanu safka ka galay askartii baa mar labaad amray min hal xabo cabe ninkaa ku rid dilka ku xukuman ee tiirka ku xidhan mar labaadkiina muu dhiman ninkii 30 xabo lagu riday iyo 30kii hore 60 muu dhiman su'aal baan ku weydiinaya halkaa ku joog 30 xabee lagu riday macnaheedu ma waxa weeyaan waan la agmariyey ma waan la xukuman mise awliyo noqday oo wax kale looga dhigay waa ka sheekayn doona way mar saddexaadkan ku rid min hal xabo muu dhiman ninkii mar saddexaadkii ayaan ku rid min hal xabo ayaa lagu rid markaa tiirku ku xidhnaa wuu soo ciiray wuu soo dhacay qoladeedii soo eegeysay baa tagnay xeer ilaaliyihii wadaadkii aniga waanu tagnay waa dhiigay waanu soo dhacay laakiin nafta kuma bixin waanu dhiman halkaa markay marayso ninka sarkaalka ah ee u xil saaran in ninkaa la dilo maxaa la gudboon su'aal adag ma isagaa istooganaya ma ninkan isaguna xabad ku dhufanaya ma cid kale u dirayaa ma askartiiba haddana leeya waar wixii hore waa qaribteene kaca istaaga oo ninkii mar dambe ku rida isagoo jiifaba maxaad samayn lahay waa arrin sharci bay leedahay laakiin sharci bay leedahay dabcan u qallafsan iyo nidaam haddaan ahay anigu sarkaal sharci yaqaan ah waan aqaana waajibaadka halkaa markay joogto adaa gacanta ula tegaya saaran
waxaase la isweydiinaya wax adigii su-aashay weydiiyee maxay askarta u dili weyda 30 xabo ilaa 90 xabo maxay ugu dhici waayeen u dili waayeen waxaan qabaa inay askartu qabaan fikrad ah inuu dembi uga imanayo haddii nin xabadoodu ay ku dhacdo ninka mid kastoo ka mid wuxuu qabaa haddii xabadiisu ku dhacdo ay disho ninka inuu dembiile yahay xagga aakhiro waay marka sidaasaa qabiil iyo waxaa maaha sidaas daraaddeed ayaa xabadda loo agmariyey ninka markii saddexaad oona dhiig isagoo ka daayo oon dhimanin baastolad baan u dhiibay isbatoore 5 ku dhufo adoo ag taagan anaa ag taagan yes dabeedna 5 buu ku dhuftay dabeedna wuu dhintay dabeedna waa la aasay ninka yidhaahdo muu dhiman lamana dilin meel lama geyno waa beentiisa anaa markhaati ka ahda anaa markhaati ka ah kolonel ismaaciil baarud waxaa la yaab leh sheeko la yaab laad runtii ka sheekaysay dad badan in ay muddo dheer isweydiinayeen oo qaar badan ola jireenba war malaa ninku s r c d baa lagu daray iyo taliyayaasha ciidamadu ka mid yahay iyo horta sheekada waad soo xidhnay oo de qofku anaa goobjoog ka ah hadduu yidhaa waa xidhanta sheekada way xidhanta way dhammaatay waxaase la yaab leh 30 askari oo ciidanka ka mid ahaa oo 90 xabadood ninkaa ku riday oo dili waayey qof halkan soo fadhiya oo dil ku xukuma ma laga yaabaa oo ma is odhan kartaa iyaga laftooda waa lala sii hadlay oo qolaa tiri waa ninkani mar hadduu madaxweynihii dilay wanaag buu sameeyo waa kan ciidamadii dalka ay qabsadeen yaan saa loo dilin mise sidaad adigu sheegtay waxaa laga yaabaa inays yidhaaheen yaan aakhira layda qabsanine waxaa dilila taydaa sax farshika cid la hadashay askartu ismay aqoonin qabiil may ahayn isku ciidan may ahayn time waxaas laga sheekeeyana may helin manay helin waay ka soo soco warma lagaa bedelay maxkamadda badbaadada maxkamadda badbaadada ninkii xeer ilaaliyaha xilligaa noo ahaan jiray ee madaxda noo ahaa maxamuud mire ayaa la odhan jiray oo taan kuu sheegay nin booliiska buu ahaan jiray s r c d buu ahaa si kasta ahaatee inkastoo s r c ga ahaa oo nin booliis oo weyn buu ahaa nin wax xeeriya waxgarad bu ahaa aada iyo aad tawradda ha ka mid noqdo tawradda waa lagu daray oo wadaadkan meesha qabsada bay saaxiib ahaayeene laakiin nin waxgarad ah ayuu ahaa oo xeeriye buu ahaa markaa ninkii baa bukooday waay dabeedna meeshii buu ka tegey waay anigu marka arrimahan meesha waxaa lagu hayaana waa arrimo culus caadiya ma waxaan ku jiray kayskii masalan caynaanshe iyo gabayre kuwaasaan ku dhex jiray kuwaanama soo gaadhay kuwaasaan ku dhex jiray waay marka very serious arrimahaas oo de waa arrimo culus weeya raggaas waxaasba la dhiray marka halkaa marayso ee ninkii meeshii ka tegey morales fair buu ahaa nin dadaalaya ayuu ahaa ayaan anigu codsaday in laga bedelo maxkamadda in laga bedelo sabab because waan naftaydaan u shakeyn maxaan ku dhahdaa waxyaabo bilaa micno ah always waa nala ilaalin jiray nimankayga waxaas oo kale baadhaya waa nala daba socon jiray waa nala ilaalin jiray yacni markaad ahaa sarkaal waxgarad ah in lay daba socdo la ilaalin waxaan faraa kula jiray waxaan ka shaqaynayo waan ogahay marka waa la ilaalinaya ikhtiyaar ma qaadan karo mararka qaarkood ma socially meel lama tegi karto qaarkood kiis aad garanayso oo masalan dembi baadhadii aqoon le baad ahayd oo dibad wax kusoo bartay oo muddo waay aragna ahaa in cid gooni loo wato oo masalan dee nimanka inqilaabka lagu dilay oo kale qaar waxay dadku yidhaahaan wax cad oo lagu hayay may jirin qaarna waxay yidhahaan nimanka waa la iska riixayo nin baa weel samaysanayay markaa marna ma dareentay ama ma lagula yimi si badheedha sidaa arrinkaa ka yeel adigoo aan ku qanacsanayn maya absolutely no maya leylama iman
laakiin markii aan ku jiray kayskii aanu baaraynay caynaansho iyo gabayro iyo arrimahaas ayaa ninkaa reexamarka ahaa ee aan lahaa madowe militariga ka yimi iyo group kale ayaa aniga shaksiyan imaagay waay markaasaa waxaa la ogaaday inaan ahay nin ay caynaansho isku qoray dabeedna odaygii meesha joogay baa loo sheegay dabeedna odaygu wuxuu yihi ninkaas si ceeb ah uga qaadi mayno uga saari mayno meesha laakiin si asluuba ayaan anigu uga saarayaa buu yihi ninkaa kiiskaa in la dareensiiyeyna dooni maayo inuu qabiil lagaga saaray meesha dabeedna intuu ii yeedhay buu yihi waxaan hayaa kays qaybta hore ee barnaamijka xusuus reeb oo uu marti noogu ahaa colonel ismaaciil baaruud inta aan ku joojino